haweeney ayaa reerkeeda waxay u sameyn jirtay rooti maalin kasta rootiga inta reerkeeda cunaan ma ahane inta kale mid kamid ah waxay saari jirtay daaqada reerka qoyska guriga meesha daaqada ah ay saari jirtay halkaas waxa soo mari jiray nin oday ah waayeel ah oo baahan wuxuu qaadan jiray xabadaas rootiga ah mar alla markuu rootiga qaato wuxuu yiraahdaa wixii sharxo sameeysanna waa wax adiga kugu koobnaan doona wixii khayr oo sameeysidna waa wax kugu soo laaban doona intaas buu ku soo celiyaa maalin kasta marka uu meesha soo maro haweeneydii ama islaantii rootiga halkan saari jirtay maalin kasta daaqada bay ka dhigaysataa waxayna maqashaanay kan oo intaan ku celinay barigii dambe aad u carootay oo waxay nafteeda weydiisay maxay tahay ninkan maalin kasta adiguna aad wax siinayso oo sadaqada aad siinayso asigana sidaan kuugu abaal gudayo kule khayrka sameeysidna waa mid lagu soo celinayo sharta sameeysidna waa mid adiga ku ag joogi doonto ama kugu ekaan doonto markaas shaydaan baa maalintii dambe haweeneydii la hadlayo nafteedu waxay ka heshay inay istiraada ninka kan dilba oo sumee markaas xabadii rootiga hayday u saari jirtay daaqada yay u marisay sun markay meesha saari rabtay ay waxay dareentay culays way cuslaysatay waxay siri oo maanta maxaad sameynaysaa qof bin aadana baad dilaysaa oo aad sababtiisa adigu yeelanaysaa may rootigii bay waxay ku tuurtay dabkii ay ku tuurtay mid kale dubtay tii meeshii sidii awalba u dhigi jirtay ay u soo dhigtay marka ay soo dhigtay haweeneydana waxa sadaqadaan ay maalin kasta u sameeysayo culays baa jira ay dareemayso nafteeda ay ka dareemayso oo wiilay dhashay ayay weysay muddo marka ilaahay waxay kaga rajeynaysaa sadaqadaas ay bixinayso inay maalin uu wiilkeeda kula kulanto maalintii ay rootiga sumaysan ninka sii gaartay laakiin ay ka laabatay ee rootiga wanaagsan meeshii dhigtay albaabka waxa uu soo garaacay wiilkeedii oo aad iyo aad u duruufaysan duruuf baan ay ka muuqato markaasay weydiisay waxa ku dhacay markaasuu yiri hooyo muddaan ka maqnaa gaajo iyo duruuf haysa darteedna waan dhiman lahaa maanta haduusan nin waayeel ah caawin lahayn waan dhiman lahaa markaasay tiri waa waxay ninka waayeelka ah ku caawiyo hooyo sidees ku caawiyo markaas wuxuu ku jawaabay nin waayeel ah iga hor yimi oo taxabad rooti markaas wuxuu igu yiri hadii maalin kasta irsaaqdeeda rootigan bay ahaytaa xabada rootiga ayaan quutaa laakiin maanta baahida adiga ayaa iga baahi daran xabada rootiga ah qaado oo quudo garanaysaa ninka mid ku yahay ninku waa ninkii daaqada ka qaadan jiray rootiga islaantan uu waramayo ayaan rootiga maalin kasta daaqada u saari jirtay bal ajiib qoftii dumar ahayd way garatay in ninka wiilkeeda rootiga soo sii uu yahay odaygii waxayna ogaatay hadalka uu dhihi jiray waagi oo ahaa khayrka aad sameeysidna waa mid ku soo laabanaya sharta aad sameeysidna waa mid kugu ekaan doonto ka waran marka hadii haweentaas ay ficilka sameeyay lahayd rootiga sameeysan ay meesha saar lahayd rootiga waxa cuni lahaa wiilkeeda oo na dhiman lahaa marka waxay noqon lahayd sharti ay sameeyayna ayada un bay ku ekaatay odayga kumay disheen nafteeda iyo wiilkeedii ku dil lahayd khayrka ay sameeysan hada waa kaaso waa loo soo celiyay qisadan marka waxaan ka baranaynaa in khayrka la sameeyo adduun iyo aakhiraba ilaahay uu ku abaal siin doono ka ajar siin doono aakhira adduun uu ku abaal siin doono shartana kadalika sharta aad sameeyso adduun ay kugu soo noqon karto aakhirana sidoo kale ay kugu soo noqon karto marka qisadaasi waxay ka hadlaysaa khayrka oo la sameeyo halkani waa Samakulan TV waxaad ka heli kartaa wararka dalka iyo dibadda kala soco warar xaqiiqo ah iyo barnaamijyo xiiso badan Samakulan TV